kulanti waxaan daawadayaal ku soo dhawaada warka midnimo media oo idinkaga imaanaya stuudiyaha dhexe ee magaalada Muqdisho waxa idin waramaya anigoo Axmed Xasan Ramaas qodobada warka aad ku daawan doontaan waxa uu waaweyn maamulka gobolka Mudug iyo degmada Galkacyo oo soo dhaweyn ballaaran u sameeyay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre madaxweyne lafta gareen oo gaaray markii ugu horeysay magaalada marka ay xarunta gobolka Shabeellaha Hoose agaasimaha warfaafinta madaxtooyada oo beeniyay wararka sheegay inuu isbedelay mowqifka kiiska badda ee horyaala maxkamadda ICJ maxkamadda ciidanka qalabka sida ayaa dil toogasho ku fulisay 3 nin oo ku eedeysanaa weerarkii lagu qaaday hotelka Nasa Hablo 2 madaxweynaha Jubbaland oo ka digay xaalufinta lagu haya dhirta ku taala gobolada Jubbaland qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad ku dheehan doontaan warka maanta waa maalnimo 14 July sanada 2019 ku soo dhawaada warkaasi oo faahfaahsan ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa magaalada Galkacyo uga qayb galay munaasabad soo dhaweyn ah oo maamulka gobolka Mudug iyo degmada Galkacyo ay u sameeyeen duqa magaalada Galkacyo iyo gudoomiyaha gobolka Mudug oo munaasabada soo dhaweynta ka hadlay ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin booqashada uu ra'iisul wasaaruhu ku yimid magaalada Galkacyo iyo dadaaladiisa dhismaha Galmudug oo dhameystiran waxayna codsadeen in dawladda ay wax ka qabato baahiyaha bulsho ee ka jira degmada Galkacyo iyo guud ahaan gobolka Mudug waxgarad haween iyo dhalinyaro ka hadlay munaasabada ayaa ra'iisul wasaaraha uga mahadceliyay booqashadiisa deegaanka waxayna u rajeeyeen in uu guul ka gaaro socdaalkiisa dhidibada u taagida Galmudug oo loo dhan yahay ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo ka mahadceliyay soo dhaweynta loo sameeyay ayaa ballan qaaday in baahiyaha bulsho ee ka jira gobolka ay dawladdu ay ka jawaabayso oo ay wax uga qabanayso sida ay u kala daran yihiin dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ka hadashay warar been abuur ah oo ay baahiyeen qaar ka mid ah warbaahinta kaasi oo sheegay inuu isbedelay mowqifka dawladda ee ku aadan qadiyada kiiska horyaala maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Cabdinuur Maxamed Axmed ayaa warkaasi ku tilmaamay kuwa been abuur ah isagoo Xuseen xafiiska xir ilaaliyaha guud ee qaranka uu wado baaritaan ku saabsan ilaha wararkan been abuurka ah baahiyay waxaan si cad u beeninaynaa wararka been abuurka ah ee laga baahiyay qaar ka mid ah warbaahinta ee lagu sheegay inuu isbedelay mowqifka dawladda federaalka Soomaaliya ee la xiriira qadiyada kiiska horyaala maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ xafiiska xir ilaaliyaha guud ee qaranka ayaa baaritaan ku haya ilaha wararka been abuurka ah ayuu yiri Cabdinuur Maxamed Axmed waxaa soo baxaya faahfaahin ku saabsan gabar 9 sano jir ah oo mid ka mid ah ciidamada ammaanka uu ku kufsaday degmada Raagaceele ee gobolka Shabeellaha Dhexe gabadhan 9 sano jirka ayaa la sheegay in askariga uu afduubtay xilli ay ka timid dugsi Quraan ay wax ka baranaysay kadibna uu farax xumeeyay isagoo waliba u geystay jirdil wararka ayaa sheegay in askariga falka ka dambeeyay uu baxsaday waxayna sheegeen saraakiil ka tirsan maamulka degmada Raagaceele in ay ku raad joogaan askariga baxsaday gabadha falka kufsiga loo geystay ayaa la geeyay magaalada Muqdisho waalidiinta dhalay gabadha la kufsaday ayaa dalbaday in cadaaladda la horkeeno askariga ka dambeeyay falka kufsiga ah falalka la xiriira kufsiga gabdhaha yaryar ayaa dhaqan xumo laga anfariiro oo ku cusub geyga Soomaaliya xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta lagu wadaa in ay kulankoodii caadiga ah ku yeeshaan xarunta golaha shacabka ee magaalada Muqdisho xildhibaanada ayaa loo diray fariimo muujinaya in kulanka golaha shacabka uu maanta furmayo iyadoona xildhibaanada lagu amray inaysan ka maqnaan karin kulanka ammaanka xarunta golaha shacabka ayaa aad loo adkeeyay iyadoo la dhigay ciidamo ka tirsan booliska Soomaaliya maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa saaka xukun dil ah ku fulisay 3 nin oo loo haystay weerarkii lagu qaaday hotel Nasa Hablo 2 ee magaalada Muqdisho sanadkii 2017 3 nin ee saaka maxkamadda xukunka dilka ay ku fulisay ayaa kala ahaa Farxaan Maxamed Samatar Cabdinaasir Dhaqane iyo Abshir Maxamed Xaaji
raggan ayaa lagu eedeeyay in ay fuliyeen weerarkii hotel Naasa Hablood labo lagu qaaday 28 Oktoobar 2017 xilligaas oo ay ku dhinteen dad ka badan 20 qof. gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Ucid Faysal Cali Waraabe ayaa ka hadlay dagaalka ceel afweyn isla markaana sheegay in xukuumadda Soomaaliland ay ku fashilantay daminta colaadaas waxaana uu ku baaqay in la joojiyo dagaalkaas. Faysal Cali Waraabe waxa uu arrimahaas iyo kuwa kaleba kaga hadlay shir jaraa'id uu maanta ku qabtay xarunta xisbiga Ucid ee magaalada Hargeysa. khilaafka ka dhex jira xildhibaanada Hirshabelle ayaa salka ku haya kadib markii dhawaan gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabelle uu sheegay in kulamada baarlamaanka la soo xiray hase yeeshee taasi ay ka hortimid gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Hirshabelle Canab Axmed Ciise. gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Hirshabelle Cusmaan Barre Maxamed ayaa haatan ku sugan Beledweyne oo uu shalay gaaray isagoo dadaal ugu jiro xalinta xiisadii ka dhalatay xilka qaadistii Yuusuf Dabageed. madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa ka hadlay arrimo ay ka mid yihiin xaalufinta dhirta iyadoo inta badan deegaanada gobolada Jubbooyinka laga jaro dhirta si dhuxul looga shido. waxa uu sheegay in dhibaatada ugu badan ee ka jirta deegaanada Jubbaland ay qayb ka tahay xaalufinta dhirta isla markaana dadka dhirta jaraya loo baahan yahay in loola dagaalamo sida Al-Shabaab oo kale sida hadalku u dhigay. madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdilcasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Markay xarunta gobolka Shabeellaha Hoose. madaxweynaha ayaa safarkiisa ay ku heliyeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya xubno kamid ah labada gole ee Koonfur Galbeed iyo mas'uuliyiin kale. waxaa soo dhaweynta madaxweynaha Koonfur Galbeed ka qayb qaatay mas'uuliyiin kala duwan saraakiil ciidan iyo qeybaha bulshada. ammaanka guud ee magaalada ayaa aad loo adkeeyay waxaana sugidda amniga iska kaashanaya ciidamada xoogga dalka iyo kuwa maamulka degmadaas. waa safarkii ugu horeeyay ee madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed uu ku tagayo degmada Marka tan iyo markii loo doortay xilka madaxweynenimo. qoraal ka soo baxay wasaaradda waxbarashada oo lagula socodsiinayay gudoomiyaasha waxbarashada heer gobol iyo heer degmo maamulayaasha dugsiyada sare ee Puntland iyo waalidiinta ayaa lagu sheegay in maanta oo Arbaco ah la soo bandhigi doono natiijada imtixaanka dugsiyada sare ee Puntland. wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland waxay la socodsiinaysaa gudoomiyaasha waxbarashada heer gobol iyo heer degmo maamulayaasha dugsiyada sare ee Puntland iyo waalidiinta in maanta oo Arbaco ah taariikhduna tahay 10 bisha July 2019 la soo bandhigi doono natiijada imtixaanaadka ee dugsiyada sare ee Puntland saacadu markay tahay 1:10 barqanimo ayaa lagu yiri qoraalka wasaaradda. sidoo kale wasaaradda ayaa dhammaan ardayda ugu baaqday in ay isdejiyaan oo si degan ula socdaan natiijada imtixaankooda. dhammaan waxaa la socodsiinayaa inay isdejiyaan ardaydu oo si degan ula socdaan natiijada imtixaankooda iyadoo la isticmaalayo roll numberkooda imtixaanka iyagoo gelinaya shirkadda Golis 299 ama webka wasaaradda ka daalaacan doona natiijada imtixaanka. guud ahaan daawadayaal inta ayaan kusoo gabagabaynaynaa war wixii dalka iyo daafaha caalamka inaga soo gaaray oo idinla socodsiinaya anigoo Axmed Xasan Ramaas. warkana waxaad kala socoteen Midnimo Media tan iyo intaan dib wada kulmi doono warkan kiisa xiga waxaan idinkaga tagaynaa sidaa iyo nabadgelyo.